wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa farxad weyn u ah in la soo gaaray gabagabadii sanad dugsiyeedka 2022-2023 iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay ee diyaar garowga dhamaystirka sanad dugsiyeedka ayaa waxaa la bilaabi doonaa imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiga sare ee fasalka 12aad maalinta ay bishu May tahay 27 waxaanu u dhammaan doonaa 31 bisha May farxad ay inoo tahay in sanad dugsiyeedka uu gabagaba yahay iyada oo howlo badan ay soo qabteen macallimiinta ardayda howlwadeennada waxbarashada qaybaha kala duwan ee bahda waxbarashada iyo waalidiinta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan rajaynayaa in diyaar garowga fiican ee wasaaradda waxbarashada ay u gashay in imtixaanadu ay ku dhacaan jawi nabadgelyo oo wanaagsan ee qaybaha kale ee bulshaduna sidoo kale nagala qayb qaataan sidii habsami u socodka imtixaanada loo xaqiijin lahaa ama dhinaca nabadgelyada ha noqoto ama dhinaca ardayda ee imtixaanada galayso in laga taageero loona fududeeyo waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan ciriiriga ah ee waliba ay ilmaheenu u diyaar garoobayaan ama ay galayaan imtixaanada dugsiga sare waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed inay kalsooni badan naftooda ku qabaan ilaaliyaan anshaxa ardaynimo iyo anshaxa mas'uulnimo iyaga oo noqon doona mas'uuliintii barito marka ay hadda waxbarashadooda heerkan ay dhameeyaan aadi doono waxbarasho heer ka sii sareyso haddii Ilaahay yiraahdo annaga oo tixgelinayna duruufaha qoyska Soomaaliyeed uu ku sugan yahay waxa aanu ka cafinay ardayda inay bixiyaan lacaga imtixaanka la xiriira wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa bixinaysa kharashka imtixaanka ee sanadkan ardayda ee imtixaanka galayso annagoo horay ugu dhawaaqnay una hirgelinay in wasaaradda waxbarashada ay joojisay lacagtii wasaaradda waxbarashada ay ka qaadi jirtay shahaadooyinka ardayda dugsiga sare ay qaadanayaan waxaan u rajaynayaa dhammaan ardaydeena macallimiinteena iyo waalidiintoodaba guul inuu sanad dugsiyeedku inoogu dhammaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh